بسم الله الرحمن الرحيم. ساك وصلت مي هاي سقالية طبعا بالشيء لبعض فبراير لحديدي waxaan saaka halkan TV-ga u hor fariistay ama kamarada u hor fariistay waxa weeye saddexda xisbi qaran ee ku heshiiyay wixii awalba ayna caamka ku ahayn in doorashadu 19 bilaha u dambeeya ay dhacdo taan baliyadeedaan diraya haddii aan dirana waxa Soomaaliland ku heshiisay kulli waa saboora laakiin waxa weeye oo ku daraya anigoo support ka diray madaxweynaha iyo saddexda xisbi qaran isla garteen ama labada baarlamaan iyo wasiirada jira isla garteen dadka shacabka Soomaaliland ku dhaxnool waxa uu faa'iido ama uu sharaf iyo wanaaga inay iyaguna wax dawladooda ku dhaqaaqay iyaguna saboora wanaaga iyo wada jirkuna saasoo ku jira kuma jiro gugutinta iyo tafaraaruqa iyo kala baydbaydka kuma jiro ha ku jirtee anna waxaan raacinayaa hambaliyada sida lagu heshiiyey saddexda xisbi qaran iyo labada baarlamaan iyo madaxweynuhu siday ku dhameeyeen annagoo saboorsan baydhis kama dhihi asaboorsadana dee waxa la yidhaa suldaan maxamed daahir cilmi هلا إلهي مقعيو بيد إيو تشيريس إيو محاربات مدنا مره رول كان سبور سنة يعني دولة دو يسبدلها سياسيين تنو يسبدلان وسيرة دو يسبدلان حسبيو دو نفيس كلا يسمى يعني هو يسبدلان أما والله كلا قلا صدح يسبد قران ودول وور وريه وكوة تشيرا ومبالا قلا مثل سمين يلا ما قالوا أما بدي من دور ديل الكلمات حلا قال وناقة يوذا شركو أدب وناكسية حسية شيء بريه عند بواحد مودة إنا موادنا دي صومالي أين بريقة كشقين وحبان يرمق مخلا المغمق له ببوغا بحالك ليلا ببوغا إيه كوتشي هاد marka waa barigu dilaaco cirka u hoyda ha u hoyday wuxuu soo dagaa dhulka uu aaminaa cirka uma hoydo maalin oo leey 6 ilaa 6 galabnimo wuxuu jira cirka ha u hoyda dhulka xero ku samaystaa xeradaas ku soo dagaa oo meel bannaan والواحد ويا إنك حردي سكت جيا أما جوري سكت جيا يجوري أنا لهين كليا ما لها أوجاد نكو دونها أحد ما لا حق جوري جا وتجيو حلكا وتجينا ملا أما واكو قحنتي أما واكو مرتي أما واكو رباطو ويسوي قعدتي سكلين taa waxaan uga gudbayaa oo taas tahay ninka aan sheegaya isaga garan waxaan uga gudbayaa hadalka reer awdal ka soo yeeray ama gobolka awdal madaxdiisa ka soo yeeray madaxdiisa ma aha waxa weeye madax dhaqameedka ama dadka ku nool gobolka ka soo yeeray dawladda inoo dhisan iyo waxaynu ku heshiin gobolka awdal bay ka soo baxeen dawladda asaaskeeda iyo dimuqraadiyadeeda iyo wanaageeda gobolka awdal buu ka soo dhisan waana la ogaa nin kastoo Soomaaliland ama ha yaraado ama ha weynaado ama dumar ha ahaado ama gabar ha ahaado ama galweynaha ha ahaado ama suldaan ha ahaado طريق يهول كلو صومال
magaalada Boorame ayuu ahaa halkii Hargeysa laga yimid magaalada Boorame ay dawladda ay noo dhisay ama in cigaal hadhiso ama tii ka dambeysay ruudka loo soo maray Boorame haddii loo soo maray dheh war waynu ku wanaagsaneen wareejirka iyo dhismayaasha waynu ku wanaagsaneen laakiin maanta waxa soo baxaya aniga halkan leh iyo anaa abuurtan leh iyo ayeeyday baa riya ku raacday war waxaas ka baxa ayeeyday halka riya ku raacday ama awowday maxaa ka jira ama anigu magaalada ku noolahay ama buur bariyo kuma raacin geel midna aba kama jiraan laakiin sida Soomaaliland ay isfartay ama madaxweynuhu soo jeediyay markuu yimid madaxweynaha imika jira iyo wasiiradiisu iyo baarlamaanadiisu waxay isku raaceen dhulka in wax laga soo baxo ama biyaha lahaato ama beeroobaad ha ahaato fariistaynu isfareen dawladda hadalkeedii ku dhaqaaqnay wuxuu ahaa dhulka in wax laga soo baxo laakiin in qalad loogala soo baxo oo gugujintu ay nagu farbadato ama ijaarkeedu nagu farbato war maaha war laga daayaa halkaa laga daayo waxaan leeyahay dabka marka la shido ee qoriyo lagu shido wuu hulaaqaado sidii wax bakti ayuu yeelaa ama uu noqdaaba war dabkan yaa israacinaya Soomaaliland kulba meel ku jinaya waxaan malaynayaa meel baan u filayaa inay meesha tahay ka qoriga hulaaqay isu soo jiidayay uralka ka sameynaya ama dadka wax kala dhex dhigaya war hal laga daayo oo dadka shicibka war waa la dhaqaa jiilka waxayna aabayaasheen ka dhaxanay dhul buu ah dahab kama inaan dhax ari iyo ida iyo waxaynu ka dhaxalay halo halii waxaynu uga gubadnay beero iyo magaalo aynu uga gudub magaaladu wax soo saar bay leedahay beeruhuna wax soo saar bay leeyihiin laakiin imika amaaraha iyo cimilada iyo waxa jira adduunka dhibaatadiisu way soo farbadanaysaa dilkiisa iyo dhaca iyo masaa'ibkuna way soo farbadanayaan war waxa Ilaahay ay naga nabadgeliyo laakiin inagu kuwa qoriyaha dabka ah hulaaqa sameynaya kuwa Israaciya yeena noqon taa waxaan uga gudbayaa on leh waddanka xumaantiisa wanaagiisa la sheega xumaantiisa lama sheego siyaasiyiintana sidana walba weeyay waxa weeyaan dadka qabaa'ilka ah had kasbadeen qabaa'ilkiiba ha ka tageen dadka isku mid ah jilib xisbi kama soo baxo reer xisbi kama soo baxo reer madaxweyne ma noqdo xisbi baa laga noqdaa madaxweyne dadku ku wada jiraan ama segregation groups ah dad isu yimid oo supportka iyo taageerada iyo waxa le xisbi baa laga soo baxaa laakiin jilibna lagama soo baxo hadal xunna laguma soo baxo hadal xun laguma soo baxo xun baa kaga dhax kulka aad madaxweyne doonayso ama aad kan jira maanta bedelayso oo dadku koogsoon yihiin oo siyaasi ku aqoonsan yihiin dee wanaaga far xumaana far taana taa waxaan uga gudbayaa madaxweynaha 3 goor baynu weydiisan magaalada Hargeysa ku noolahay magaalooyinka kalena waan ka warhayaa goboladana waan ka warhayaa war dadkii dilka ayaa ku soo farbadanayo dhalinyartii waxbay leeynayaan had iyo jeerna waan sheegaa 3 goor oo horena waan sheegay imikana waa sheegayaa oo markay afraada aniga igu dhacdo haddaad baabuur wadato inamadii dhagaxaan baa u dhigayaan way ku joojinayaan faasasiye midiyay kula soo baxayaan ilaahayna wuu ogay umiisuna wuu ogay dawladuna way ogtay madaxda dawladda ee biliiska amanka ku shaqalay way sheegayaan madaxdooda sheegaya way nala arkeen xaafad ay ka maqayeen jiro warinimada la jeeyay shan kun oo ina kama badna
madaxweynaha taasaan weydiisan ama aan weydiiyay anigu war inamadana dalkii way soo socdaane madaxdaa sheegaysa inay soo dhaafeen dariiqyadii iyo dadkii uu miskiidadii dadkii ku leynayaan war intaa la jeey oo dadka dhalinyarta had iyo jeer waxaan maqlaa dawladdu saasay u qabatay xalitaan dhegeysanay habeen horaan dhegeysanay kuwan maxaa loo jaahin waay iluu sheeg waay war intaana dawladda jirta iyo madaxweynuhu hanoo fuliyeeno inamadan si ha loo jahin waa loo jahin kara waa shan kunoo ina laba u kala qaybiya labada amaan hadday milatariga tahay iyo hadday biliiska tahay war u kala qaybiya waxbaba kuma fadhido waa wadhay wax loo kala qaybinayaa war dadkaa laga gaado dhalinyarta dhoorka samaystay suwaalkiisa ay u xidhaan